السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. walaalayaal meel lagu nagaado masaajidka ugu khayr badan, hadal la maqlo oo la dhageystana waxa u khayr badan waa hadalka Ilaahay jalla wa ala iyo hadalka nabiga kaleey salaatu wasalaam. kulligana waan baahannahay oo Ilaahay baan u baahannahay. yaa ayuha الناس أنتم الفقراء، Ilaahay baa leeyahay ayuha الناس dadow أنتم الفقراء, kuwa baahan baa tihiin baa Ilaahayna leeyahay. laakiin maxaad u baahan tihiin? Ilaahay ma dhihin lacag baad u baahan tihiin, Ilaahay ma dhihin cuntaad u baahan tihiin, Ilaahay jalla wa ala ma oran daaro iyo aqalaad u baahan tihiin. Ilaahay wuxuu yidhi antumul fuqaraa'u ila Allah, Ilaahay baad u baahan tihiin. mar walba bini aadanku waa kii baahan, baahi fara badanna gudaheena waa lagu abuuray ogaada. dharka baahi baad u qabtaa, aqal iyo hoy baahi baad u qabtaa, cunada baahi baad u qabtaa, acabka biyaha baahi baad u qabtaa, oksijiinka hawada baahi baad u qabtaa, xaas iyo ubad inaad yeelatana baahi baad u qabtaa, kasbi iyo shaqo inaad yeelatana baahi baad u qabtaa. waxaasoo baahiya isku wadagee. baahida ugu muhiimsan ee bini aadanku ay leeyihiin waa hidaaya, alhidaaya. waa mas'alada keliya ee ku soo aroortay suuratu lfaatixa, oo qofku mar kastuu tukanayo, hadduu farad tukanayo, hadduu sunno tukanayo, uu leeyahay ihdina siraata almustaqiim. baahida bini aadamkuna way kala weyn tahay ogow. baahi baad u qabtaa dhar, baahina waxaad u qabtaa daawo. dharka iyo daawada, dharkaa muhiima. haddaad iminka aqal aad tagto oo tidhaahdo baahi, labada baahi bay haysa, daawona waan u baahanahay, dharna waa dhar la'aanna way haysaa, waxaa lagugu jawaabayo lagu odhan war annagu daawo lacaguma haynee, laakiin mare aad cawradaada ku asturta waan haynaayo hoo baa lagu odhan. haddana baahida dharka aad u qabtid iyo baahida bini aadanku ay u qabaan maaragtaanay cunnada, waxaa muhiima baahida cunnada. haddaad tidhaahdid dharna waan u baahanahay, gaajana way haysaa, waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo dharkuuma hayna haddee, laakiin waxaan ku haynaa cunee, bal cunnadahan ku siina fadhiiso. laanna ilaahay waa og yahay shayba shaygaad uga baahi badan tahay buu ilaahay ka dhigay rakhiis. adoo haddana laba baahi ay ku haysa aqal wada garaacay, baahida cunnada iyo baahida acabka. waxaad tidhi gaajana way haysaa, oonna way hayaa, haalo cunta xaafadda xilligan ma taalle, laakiin biyaha yaalle, biyahan ku siina fadhiisa baa lagu odhan. biyihii buu ilaahay ka dhigay rakhiis. baahida bini aadanku ay u qabaan biyaha iyo baahida bini aadanku ay u qabaan oksijiin hawada, midkee muhiima? oksijiinka ilaahay waxa uu ka dhigay free, cid kugu kontaroolaysa ma lahan. meel kastoo tagto hawada waad helaysaa. baahida aan hawada u qabno iyo baahida aan u qabno hidaayadda waa ilaahay macrifadiisa.
وإلهي قرشدي جل وعلا وإن إلهي قلبك إسلام نمضى وكشرح إنه تهي دين حقه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام آيات داسي مركي سود دكتي ونبينا عليه الصلاة والسلام وصحابة دوشودة كو أخريي قفك إلهي جل وعلا ولد معين وحنونيو لا ابتساء إلهي كشرح إسلام نمضى وإنه حقته مركاب النبي عليه الصلاة والسلام وحوري هداية والنور نور كإلهي ويانا عدك لما هيسو قفك إلهي نور كقلبك يسوء قليب رسولك يدي قفك حبنه سأيا أججبنا ذا إلهي إني أضيعان هذا النور كاسي قلبك قال الله إنه قليب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نهدي به من نشاء من عبادنا بإلهي ونور كاس إلهي ما ينعدك لمن بالكدو قفك إلهي ودونو قلبك سنورك كتورا الله إنه كتورا آمين هذا ولا ليال مركب صحابته إلى النبي الله ونور كاس قلبك إنه قال وح على ماذا الله قرت ميجر زمان الله شيء مركب النبي يقول ها التجافي عن دار الغرور بالنبي يقول قفك إلهي قلبك سهداية نور الهداية قفك قلبك سأي بيدك وحل الله قرتها التجافي عن دار الغرور دار تندتك الدقيسة خيالك بنبنت كسراب بقيع إلهي كتل مامي أيا قفك إلهي قلبك سكجديا ما قيمة أدوية ولا دتك أدوية هايستنا ما قيمة ماشي أدوية لقاها الله ينا ما قيمة والإنابة إلى دار الخلود بالنبي يقول صفات الله بعده النبي يقول كل شيء قفك قلبك سنور كإلهي وقلي على مدى الله بعد اللي قرت وحى كمدا دارت الله واريا بين آدم كمرنا أيسن كجورين الله إنك وجنده دارت أسوقفك مؤمن كجعل الله برسولك يري قلفتي سوم بأدوية التعلم ويه مؤمن كقلبك سجنده يلا سيد صحابي أبو الريحان رضي الله عنه غزوة بكسر النقدي زمن كان نبينا عليه الصلاة والسلام نكو مركو دين تدالك يجي جهاد كأوبحه أما داوع أما دمشق لو ترينا يلا بعض مدن بلفله إنه الله صار نقنعيه لكن أبو الريحان وحى إلى هاي نبض سعلي يسوى نبض قبح لأن مرة اللي مركو صلاة العشاء وتكذب بجورجي سيتجي هوين يديسي ودي أرأي كسو بودا مركز كويري إير لبرك عن كذا كذب كيري تحية السنه صلاة العشاء هكذا بيس إياكو جوريها إلا تجيين إنك ما أنتوا حلقة يا بعضك مسلمين تو سنة أنا مسجد بكتو كدان فرائدنا مساجد بكتو كنا صلاة الضون كتو كذب ونبي يقول صلاة وقفل بدن وصلاة وقف جوريجيس كتو كنا إلا فرد كمويانه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كستو فرد مركو النبي كبح وعد مجدناي أما أمده وحبراي أما نصيح أمده وجدناي أما كوا سو إسلامي بدين تبراي أما كقرآن لبراي أبو رنجر محل بري أما مرتدى مسجد كتيم دي النبي يقول لفري سنة أما سنها وح النبي قال لك سو أروريين وجري صلاة رنجر صلاة سنها عدد أبي الصحابة الله عيان سي أي جريهنا أي بركة صلاة هي النحريس صلاة كسو دقيس أي جريه نصيب وجو يشان وإلما يرن وجو أكبر باره هو يي أبع عبادي سنة يو دين له أي النبي يقول نوجو جدي صلاة لجو تكذا صلاة سنة أول تكذا صلاة وجو فرد وجو فل بدن وصلاة وقف وجو رجيس كتو كان إلا فرائد مويانه أبو ريحان صلاة دي بجوري يقول لي مدي هوين دي سبا كسو بدو مركز كويري إيه كده هنسون نسته لaba rakac tukaday sidoo laba rakac ugu taagnaa wuxuu maqlay muadinki oo u dhawaaqay salaat al-fajrki hayya ala salah hayya ala al-falah hayya ala salah hayya ala al-falah sunnihi bu khafifiyay masaajidkii buu tagay uu soo tukaday markaasay sugtay ku tiri ya aba rayhan ghazawta ilaahay dartii baad u baxdo jihaad baad ku maqnayd waad soo daashay safarna waad ka timiday adoo nabad qaban ilaahay waa noo ka soo celiyay aniguna xalay oo dhan faraashka dushiisa kugu sugayay adiguna salaadun baad ku jirteen miyaanan xaq anigu kugu lahayn bay ku tiri markaasuu ku yidhi xalay toole hal mar oo keliya haddaad maskaxdeeda ku soo dhici lahayd xaq waad ugu yeelan lahayd buu yidhi laakiin marna kuma xasuusan buu ka yidhi oo maxaa iga kaa mashquuliyey wuxuu yidhi xuuralcaynta
iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyey buu xalay qalbigaygu joogay buu yidhi bilaahi calaykum iminka inteenna halkaa masaajidka soo gashay haddii la yidhahdo war 10kii daqiiqo eed salaada aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay qalbigeennu halkuu ku maqnaa maanta waa labada marxaladood ee la garto qalbigu ma saliimba mise waa mariid qalbigu muu bukaa mise uu caafimaad qabaa laba marxala la gartaa laba marxaladood cinda asalaa markaa salaada tukanaysid kow iyo cinda almusiiba markay musiiba kugu dhacdo waa labada marxaladood ee lagu teesteeyo qalbiga muu caafimaad qabaa mise uu bukaa salaada markaa tukanayso 10kaa daqiiqo 12kaa daqiiqad imaamka gadaashiisa aad ku tukanaysid qalbigaagu xaggee buu ku maqnaa lidaalika ibn qayim aljawsi raximahullah dadka salaada tukanaya 5 buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeedii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa la yidhi qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamaci iyo jamaacaddii masjidku ku ilaalinayaa laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimidin ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu biالصabri والصalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey haddii masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaara loo jideeyey istaciinuu biالصabri والصalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaaddii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaadda inoogu raaxay han ku raaxaysanne xubiba ilayhi min addunya halaaث adduunka waxa yaalla 3 ba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon والنساء يا haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi الsalaa halka indhahaygiiyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaada laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku inay salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyadaba ay ka tagaan nin culimmadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaada xidho thaabit albunaani baa la odhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay seed ku hesha adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay lilmada ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu yidhi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahow anu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud اllaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa
waxaan ka fikiraa markaa salaada dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaado leeyahay ilaahay baa ku yeedhay xisaabta lagugu yeedhay soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyay oo la qaaday kii iga horeeyay oo la qaaday waxay salaadu ii dhamaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku hadhay hadda ilaahay ku yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baan salaadeeda ku dhamaystaa buu yidhi haye raisli ninkuna dareenka ku dhamaysataan masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-cishaa وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعت إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكجرا صفقة هوري صلاة دي مركي لقى بحيب إمامكم يدي ورا آمين تلا بدل كذا كنتن والله من حقه أم بلابه والله بلابه نبلانه والله وأكون درهم لا إله إلا الله أرجع مد بعيد الشيخ كواس ويبقى قيلينه واحد ما أنت مسلمين إلا من رحم ربي مساجد كنت كان يوردن وإن قد قيلين مويانا أدو يدوي كل جن جودها كوضح هذا الله بيقول والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك يقف كالنور الهداية أي دكتي وحلقوا قرتابو يدي رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين يوم أي قفك مؤمنك قلبي سجع عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحكم ذا يوري رسولك انت قفك مؤمنك أجش أيسن كوئما أسقع دي مشهد ديار من منا لا يكره الموت كما أنت مسلمين تا نولش يجريدا نولش جعل أشياء ما تريال كي العكتة يعملك الصالحة قلبي إنه هذا دباتة إنه قلت ما دوحوا إلنا يا لعكتوا إلنا يا وحول العقد هذا يسمى مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مضوا كلا قرن لا هيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمال كلا إنه وجهه إلا حق سمويانه وما شيء إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقة هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونيك الأولى فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلا بريدي سي عبسي دي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب قعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك وامد كلية بحال قلبك امد لوغا دغاي وحبنت كلية جرك بني هذا كما مشبه رسولكم يدي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آذنك هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آذنك وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعين مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ميشي الربان بي آذيان دقالهيني ميشي الربنا كو بحينينا هذا الكيني ماشا وحان دوناكو هاللينا وحان دون حسن البصري رحمه الله يا يري صد سنو من قسلين أفرت سنة من كفتمين وحان سو غاري رق يا أقوام وحان سو غاري
aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuugahan isku malaynayay buu yidhi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meeluu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culimmadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisa ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseyne way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baa anigu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahe maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyaa kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal
kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60kaa sano waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay haddaad 60kaa sano adduunyada aad joogtid aad ku noolaatid addoonnimo maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa xorriyad nin saalixiinta ka mida kaana yasuuma annahaar wa yaquuma alleyl sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay qosol nin xanuunsanoo qoslay ka warno sakaraada markaas marka waa saac ma saacaddan aad hadlaysaa baa lagu yidhi ma saacaddan aad kaftamaysaa ood qoslaysaa wuxuu yidhi ohin anu waan dhammaystay buu yidhi maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa buu yidhi ibnu cabbaas radia allaahu canhuma nacashkiisa markii lagu qaaday qabriga la geliyey haatif waxaa la maqlay aayaddan qur-aanka ku celcelinaya yaa ayatuha annafsu almuطma'inah irjicii ilaa rabbika raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii waayo 9 sano ama dhowr iyo 80 sano waxaa ku dhammaystay oohin buu ku dhammaystay noloshiisa oo dhan maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda cilmiga baro maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda wax baro maruu isagu ilaahay la munaajoodo iyo maruu dadku sida ilaahay u baryaan uu u sheego noloshiisoo dhan wuxuu ku dhammaystay bayna cibaadatin wa cilmin wa dacwatin buu ku dhammaystay markaa 60kaa sano 70kaa sano ilaahayna siiyey waxaa laynoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jala wacala aan kula baayac mushtarayno khulayd binu cabdillaahi baa yidhi muuminka 3 meelood in laga waayo maaha buu yidhi 3 meeloodun baad leedahay masjidun yacmuruhu wa beytun yasturuhu wa xaajatin laa ba'sa biha buu yidhi 3daa ayaa qofka muuminka la dooni wakhtigiisa inuu ku bixiyo masaajid uu camiraayo mar salaad buu ku tukanayaa mar qur'aan buu ku akhrisanayaa mar cilmigu culummada ka baranaya mar dadka muslimiinta bilaa salaadee dayacan ayuu u fikirayaayo intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culummada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeedhayaa wa beytun yasturuhu qofka muuminka meesha saddexaadee la doon in loogu yimaado aqalkaaga wakhtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso asxaabta rasuulku maskiidka markay joogaanna arday bay ahaayeen guryahooga markay togaanna mucallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaanna muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen maskiidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cuثmaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooday isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahay ee nebiga rumeeyeyow reerihiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macnuhu madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay uu reerkiisa barayay markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen dad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen hadday 500 oo ninoo martiya maanta maskiidka nebi maxamed ay timaado meeshii lagu marti qaadayeyna waa diyaar aqaladii diinta lagu barayeyna waa diyaar mujtamac cajiib weyaan mujtamacaasi guryahooga markay tagaana mucallimiin bay noqonayeen mar alliya markay dadka kale u tagaana muballiqiin aladiina yuballiquuna risaalaati illahi bay noqonayeen difaaca addiini waalwatan diinta markay noqoto difaaceegana mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali waannafs naftoodii maalkoogay diinta ilahay ku difaacayeen marka muslimka waxaa la doonayaa wakhtina masaajidkaaga sii wakhtina gurigaaga reerkaaga iyo ubadkaaga sii wakhtina waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid kasbi xalaala si aad xaaraan uga badbaadid
saad mas'alada bini aadanka aad uga badbaadid saad u noqotid yadul culya gacanta sarraysa ee la baxaysa sadaqada buu nabigu yidhi ayaa ka khayr badan tas hoosaysa dadku wax weydiisanaysa saddexdaa sifaa qofka muslimka laga doonaya saddexdaa meelood laakiin inagu Soomaali haddana dabeecaddeena ka warrama dabeecaddeena ayaa naga bedeli dad adduunka maqaaxi uu fadhiyo shaah cabaaya oo sheekaynaya oo waxa caalamka ka dhacay la socdo Soomaali uma lahaya maanta aan ka sheegay baytul maal wadannada Asia wadan kamid ah ayaa nin caalima oo madrasad haya ayaa ziyaartay luqada carabigana xabad yar buu tuuranayay markaasuu yiri min ayna markaasaan ku yiri min Djibouti markaasuu yiri qariib min Makka markaasaan ku yiri ما سمعت طيب صومال قريب من مكة وراها كانوا شيء أرض الحبشة قريب من مكة مكة هي مدينة هي عيال كقرآن كودي جاي مويانة عالم كواحد كسر وربك ما هي سنة كنا وحلا جاي أبا كنتن أرضية وحفظت كتاب الله إنه صار صومال محو صار بالشك أفرت السنة كهر وحي ودن كأنه كد ما يبال هذا لا يا إلهي مك وما تصعد نحي وما تشاكين إنسان وما وحنوب بدنا هي وحن لو ديرن كم مشغول سن سيدا مركا هرمرا كو غارينا ورلا بدن إن دوده كوكو تعالى بالغولة إلا دويد هذا كو إيجو إلا آخرة هذا كو إيجو وقت جانا صدق هذا نقيبي 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa masaajida 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega 8 saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaal ah maxaa ka tagay baliisha 8 saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horeyn waad ku dambayn quraan baad ku akhrisan dhikri baad ku samayn xalaqadaad ka qayb gali culimada dhageysan dadka caamada dayacan عيد الدمقنيس عيد التجيس أين نجرين ولا بدل يرى له بدن أياد قعنت أنت تصقبت مساجد كاني يا غلام أسلم غلام يهودي والنبي قال خدميني عليه الصلاة والسلام أي النبي قال تبي أوي أو بكابا لقيري يسوق صعود النبي قال يركي رأوتك لأن مركاسو النبي قال يركي رايو نفتو هديتو لقيق راي هيسو سكرادا حقا مدحو النبي كفر يسي مركاسو يري يا غلام أسلم اسكا إسلام مركا يركي را أبيه بيقو كبقي أبيه با إلهي كسيي أطيع أبا القاسم أبا وركي سيال فأسلم الغلام يركي را أو إسلامي وحو النبي كسو بحي قرقي إسوغا وجيكي سفر حدو أي كم وقت أولي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إله وحن كو حمدنا يا يركاير سببتين نارتك قبت بادية با محل برسولك يري يذهب إلى الناس اللي ما ديهي سينيين أي وقعت كيسين والصبرين هذا قلنا والصبر بان نبي قال صبر إني دلان باي كفكرة يعني يكو اسنوحو كفكرة يعني هنونان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي النبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا إساقا اسكو جيدا ما عدك الوحو جيدو وإساقا كديقا لقد هذه قوم كيسو أي دقحييين قوم كيسو أفلقاديين وجه كيسو الشريف كأغنوفت لقاتو في وإساقا عليه الصلاة والسلام انتو اسكا مسحو انتو ديقا اسكا بيه مال انتي ماركتانا يوم الطائف أيو لها وحا يقود ليان قرن معياني وقوم كيجي له دم بدافو لها هبين هذا كمذا أيو النبي قال صلاة عائشة قري يقول كقرنا عائشة أم المؤمنين مركز النبي هوستك سوق شيء وعلى عائشة عاوة ميدين بوكيدي ربي جهان عابد عاوة مسك كيدين مركز عن كيدي بيتنا وان كود دايس كعباديس مركب النبي قال استاجي لبدا آية ضاد صدق قل علنا يي آية بلال صلاة فجر بلال وأدمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
فإنك أنت العزيز الحكيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم هبين للمدى كدهدة اللي انتيسا halkuu sujuudda uu dhulka dhigayay bay ilmadu qoysay labada aayadoodna macnaheega waad garanaysaan aayadda hore waxa weeyaan ereyga nebi ciise calayhi salaam uu banka qiyaamo ku odhan doono ilaahay hortii uu isku beri yeeli doono ayaa nebi maxamed naifka dusheeda uu ku lahaa oo ereygee anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah yaa ciisa bna maryam ayaa rabbilciza ku odhan doona maalinka qiyaamaha maadaa ku yidhi qowmkaaga reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku yidhi markaasuu nebi ciise isberi yeelayaa markuu isberi yeelo buu odhanayaa haddaad cadaabaysana dee waa addoommahaagii haddaad u dembi dhaafaysana dee amarka adiga iska leh ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazala jibriil calayhi salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil u tag muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u tag muxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummaddaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayno adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno iyaka wax adiga dhib ku geliya ka yeeli maynaba iyaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu lilmadii intuu iska biyey ayuu salaaddii subax nebigu saxaabada tujiyey aawey dareenka iyo shucuurta maanta ikhwata aliimaani waalislaam aawey shucuurtaas cidna uma maqna ummadda walaalayaal inteenna saalixiinta ee masaajidda soo galaysa ee culammada dhegaysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innaka laynaga rabaa ummaddan aan u fikirno oon wakhtigeenna 8 saacadoodna masaajiddeenna ku camirno waa mar waa xalaqad weeyaan cilmiga la baran mar qur-aanka la akhrin mar dikri baa la samayn saacad baa la fadhiisan sidii abu darda radia allaahu canhu markii la weydiiyey la abu darda saacad wakhtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yidhi xaaskiisa waxay tidhi wuu fikri jiray tidhi bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir keligii intuu meel fadhiisto ayuu ka fikiri jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikiri jiray diinta ilaahay 8 saacadoodna kasbi xalaala 8 saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaagii xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu darda buu nebigu walaaleeyey salmaan iyo abu darda salmaan baa soo ziyaartay abu darda xaaskii abu dardaayo wuxuu arkay umu dardaayo jirkeyga ay ka muuqato nafaqa daro oo dharkeyguna maaragtaana ku dulgoogo'ay markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tidhi saaxiibkaa dee nin adduyo u baahan maaha adduyo uma doono uu ka qaaday tiri faraha way dacwaysay moogta walaalkaa abu darda salmaanoo walaalka abu darda laa yuriidu dunya nin adduyo doonaya maaha isagaa dee noo shaqo tagi lahaa oo dharka naga bedeli lahaa oo masaarif noo keeni lahaa soo ma ahayn ha isagaa naga mas-uul ahaa nin adduyo maaha faruu ka qaaday adduyo hal waayahay waa sugi wuu fadhiistay abu dardaay oo socdaa yimid markaasay ku tiri war walaalkaa salmaan baa fadhiyo ku sugaya dibadda markaasuu uu yimiday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadiibuu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi maya anu waan soomanahay soonka jabi buu yidhi la cun waa sunnee uu la cunay habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu abu dardaana uu leeyahay salmaan uu kaa seexday markuu yidhi isla markiiba abu darda salaad buu u kacay salmaan baa yidhi war yaa seexo seexo jooji salaadooda uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhegaysta meel baan u socdaa hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu yidhi war seexo
kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadihii dambe yiri imika ka hadaba ha wada tukana labadeenu bay markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yiri waryaa Abu Darda ay dhageyso rabbiga xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay mid walba xaqiisa si buu ka yiri iska aamus Abu Darda ilaa waan xalay salaada leelkiisa laga kala daadiyay oo soonkiina laga jabiyay waliba dardaaran la siiyay ma harine intuu soo socday buu nabiga ku soo dacweeyay wuxuu yaa rasuulallah Salmaan baa yimido soonkaygiina uu iga jabiyay salaada leelkii xalay tolan uu iga manciyay adoo halkan joogo marjicii dhanaaya ayuu hadalka isaguna igu yiri marka nabigu muxuu yiri sadaqa Salmaan muxuu yiri sadaqa muxuu kugu yiri wuxuu igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay mid walba xaqiisa si marka buu nabigu yiri sadaqa Salmaan run buu sheegay buu yiri xadiiska ninka lagu akhrinay waa Abu Darda mise waa inaka bali sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomana adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigii adiga maaha daa'iman jamaacadu waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan ka xaynay mid baa qabto xadiiskaas ku akhriyay markaa buu yimid wuxuu yiri Sheekh Xuseenow anu inima raacaya buu yiri xadiis aad iga qariseen baa la sheegay buu yiri markaas aan ku yiri wuxuu haday xadiis way badantay anagu culimo ma niine arday wixii culimada ka soo maqleen dadka u sheegaanay muxuu ahaa xadiisku waa sadaq waxa la igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay islaamtu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen daa xuquuqdiisa umada yicin buu yiri war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeeni baa dulman maanta waqtigeeni adduunyada u batay mise aakhirada baliga jawaaba midku u batay waqtigeeni adduunyo u badan yahay qalbigeena maanta maxaa ku weyn adduunyo mise aakhirada adduunyada ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saadarteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilaahay baa walaalo ka dhiga muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamka walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatay madluumka ayuu xooggiisa ku caawino uu u gurman oo wuxuu leeyahay war ninka waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaa samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaa samayna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muuminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa
dilkiisana waaba lagu gaaloobaabuu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiinta walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horeeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta Cikrimuha markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kale oo ka shisheeyo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kiiba lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninnagu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa jooga muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji maskiidkii nebigeennu soo galay alayh slat slaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhay markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetoole waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetoole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwat aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqdaa dad muslimiina
oo luqo keliya ku hadlayaan haynaku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaab illaahiya iyo maaragtaan madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashkii imika matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaroo sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa matcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa iga dhor bilxuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiye ilahay aan ugu mahadinno lain shakartum la asiidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam وبالشكر تزداد النعم حمدك وكعرب كويان شكرك وكعمل كويان صلاة الليل كنبي وكعي ركعات كلي وكنت كذا شن جزء بد إلى لغيه بران عائشة كتري لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محوك جوابي أفلا أحب أن أكون عبدا هذا هو الشكر marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwadeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar manihin insha allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culumadiina quraadiina allah inii soo dhaweeyey ninkana annaguna jabuuti baan nagu soo dhaweynaa noo kaalaya insha allah ya reer nairobi reer isli ma socotaan maxay nagu dhacay waxuunbaad dhisaysaan aqla dhaadheere إن شاء الله خير كانوا وانبيرنا صو ديار منهن ذنبنا الله داف ذنبك والدينتنا الله داف دينت الله إنه معاني مرلكنا الله شافيه موتات كنا الله ونحرست مسلمين تميل جوغان كربضة يعريرك الله كقاضي موافقين من ضمن مسلمين تميل جوغان الله سيو اسمع ذكر الله إن هديه صلى الله على نبينا محمد سامحوني مشايخ